dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo afhayeenka baarlamaanka dalka Mudane Taagase Jaafo ay si wada jir ah u bilaabeen dhisidda guryaha 30 qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada Jigjiga waxaanay dhismaha guryahani qayb ka ahaayeen barnaamijka taakulaynta dadka duruufaysan oo la isla qaatay heer dal. barnaamijkan taakulaynta dadka duruufaysan oo ay bahwada ku yihiin xafiiska madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida, xafiiska baarlamaanka ee heer federaal iyo xafiiska maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxaa bilowgii barnaamijkan baaqa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ka mid ahaa in culimaadudiinka deegaanka, ganacsatada, aqoon-yahanka iyo qurbo-joogta deegaanku ay ka qayb qaataan taakulaynta dadka duruufaysan ee dib loogu dhisayo guryaha oo ah fikir wanaagsan. Dhisidda guryahan loo dhisayo 30 qoys oo degan xaafadaha labaad, saddexaad, afraad iyo shanaad ee maamulka magaalada Jigjiga ayaa ka kooban 61 qol oo loo dhisayo qaab ka duwan oo ka casrisan guryahoodii hore. Sidoo kale barnaamijkan taakulaynta dadka duruufaysan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay ka socday gobolada deegaanka. Haddaba guryahan oo uu wejigii koobaad marayo 70%, halka wejigii labaadna uu marayo 50%, ayaa waxaa nooga warbixiyay injineer Maxamed Cabdullaahi oo ka socda xafiiska madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida. si guud haddaan mashruucan ama si kooban aan uga warbixiyo mashruucan oo ah mashruuc loogu talagalay in dadka danyarta ah waqtiyada xagaaga laga caawiyo deegaanada oo dhanna ka jira ayaa deegaankeena la qorsheeyay amaba wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa deegaanka iyo afhayeenka baarlamaanka ay 12 bishii Hamle ee calaamadeeyeen ama dumiyeen guryahan si loo bilaabo qorshuhuna marka hore wuxuu ahaa dayactir oo baarlamaanka federaalka ugu talagaleen ama heer federaal inooga imaaday marka la isla eegay guryihii meesha ka dhisnaa ee dadku hore u sii dhisnaa oo aad u liita oo suuroobaynin dayactir in lagu sameeyo ama ay dumi karaan waxay guddigii markaa ay arrintan qusaysay isla go'aamiyeen in loo bedelo dhismo waxaana la go'aamiyay 30 qoys in min 2 qol looga dhiso maamulka magaalada Jigjiga. waxay socday hadda mashruucan bil iyo 15 beri guryaha laba face bay kala ahaayeen. qaybtii koobaad ee waqtiga bilownay 19 Hamle waxay hadda marayaan jingadii baa fuushay waana 70% ee guryahaas madaxooda marayaan. waxaa jirtay face ka dambeysay oo 0 u badan iyo 0 ama qabalayga shanaad iyo afraad kuwaas way ka dambeeyeen 10 beri bay ka dambeeyeen marka iyagu way percentage ahaan ama heer daboolkooda hadda wax maraya 50% jaajuurkii baa ku dhamaaday fuushadii baan diyaarinaynaa. qorshaana wuxuu yahay maadaama dhismaha caqabadiisu inkastoo iska badan yihiin mar walba waqti roobaad lagu jiro alaabta helitaankeeda khasaan sibirka kale haddii caqabadaha marka jira aan ka gudubno oo walibana sida ugu macquulsan aan u yarayno saan rajeynayno waxaan ku dhameynaynaa 25 beri kadib. dhismaha guryahan oo la bilaabay dabayaaqadii bishii 11aad ee 2014 oo waqti xaadirkan ku dhow gabagabo ayaa waxaa dareenkooda nala wadaagay shacabka nasiibka u helay barnaamijkan taakulaynta dadka duruufaysan ee dib loogu dhisayo guryaha. gabadha guriga loo dhisayaan ee danyarta ayaanahay dawladda mahad baan u celinayaa rabbiga weyna mahad baan u celinayaa ilaahay galadiyo wanaaga ka siiyo dawladda noo dhistay inamada noo gargaaray ilaahay wanaaga ka siiyo ilaahay aakhirana jannadii Allaha geeyo walaalo saasaan leenahay shucuurtayada iyo farxadayada lama koobi karaba dad cidhiidhi ku jiraan in cidhiidhigii aan ka baxnay. madaxweynaha iyagu Mustafa Maxamed Cumar wuu mudan yahay salaan kaska iyo laabta ka soo goday ayaanu ku salaamayna salaanta islaamka ta ugu qaaya iyo qiimo badan baan ku salaamayna waxaan la arag oo la maqal ayuu noo sameeyay ilaahay miisaanka xasanaadka ilaahay u saaro wuu noo dadaalay masaakiin baan wuu noo dhisay wuu na hagaajiyay Mustafa Maxamed Cumar wuu mudan yahay iyo mudanayaashiisa iyo wixii ka hooseeya iyo wixii noo qalqaalinaya iyo wixii wax noo qabtayba salaan kashka iyo laabtaba ka soo gooday oo salaanta islaamka ta ugu qaaya iyo qiimo badan baan ku salaamaya. maanta aniga subaxa saaka waxa iga jircsan ma jiro ilaahay wax weyn ee waaxidka og haddana taa waxa miskiina ee waliba aniga say taag daran iyo waxa culimadiinka iyo dawladda iyo dadka wax haysta taa hana caawiyaan oo dadka islaamka kaliday ma wada caawiyaan oo waxana taraan kuwa waxna tarayna ilaahay miisaanka xasanaadka Allah u saaro
waxayna tareen wax ka weyn Allah u taro